ها كم صار والله halkan ka soo bilaw xafiiska soo soo qabo halkan waa xarunta cilaajka Sheekh Abdul Haq wuxuu yimid magaalada Muqdisho horta ma lay maqlaan shaqada waa shaqaynaysa gabadha horta ma maqashaan haddaadna maqashaan waa xarunta cusub cilaajka Sheekh uu yimid waa Muqdisho gaar ahaan Xamar Jajab Salaam Afrika meeshan waa xarunta isdiiwaangelinta dadkii la qaabilaya shaqadii dadka la wadaa ili sheekhan waa kana meeshan jooga اوكي تمام وصلت gudan gelinaya insha Allah taala halkan waa xarunta cilaajka marka dadku in badan baa lagu wareeriyay Cabdixaq baan nahay ama Cabdixaq baa soo socda waxaan leenahay Cabdixaq wuu jooga oo shaqeynaya insha Allah taala midka wax shaafiyana isaga ma waa Ilaahay marka halkan waa xarunta cilaajka halkan waa Salaam Afrika halka waa halkii dadka lagu diiwaan gelinayay halkaasna waa meesha dariiqa laga soo gali doono marka si aad ula socoto waxaan u geyn doonaa insha Allah wadada lambar xaga la qosa ديري مرة شغلة تاعي أنا قلنا هو قلت توي مبتدئ السلام عليكم أخوي ما سيرت عبقول كرفي عنا زاري halka waa Salaam Afrika way dadka way adhow waxay oran doonaan xageed joogta dariiqa waa dariiqii ka imanayay Salaam Afrika halka iyo dalcadii SYL buu ka imanaya halkaana waa xamar weyn weeyaan wadada Martini marka dadku su'aasha ugu badan ay weydiinayaan waa xagee weeye marka waa Salaam Afrika mootooyinka meesha lagu sameeyay shaleemada hore Afrika gudaheeda ayuu cilaaj ka dhici doona marka taasaan uga jawaabayna marka hadda wada fadlan سيمارت شرقري سيدتك أيها أركان إن شاء الله. شرقري سي شرقري. بورد كنار. meeshan aan dhex socon waa xaafadihii Xamar Jajab gaar ahaan buurka انت قرينا
goobtan hadda aan soo gelayno waa goobtii loogu talagalay in quraanka lagu saaro dadka fadliga ilaahay وحير سجى شيخ واكل runta waa halkan wey insha allahu annaga iyo shahaadiinta meeshaan ummadda wareerisaalkana ku wada ciyaari doonaa halkaan ku diri doontiin marka ha ogaadeen dadka saxarada iyo shahaadiinta ummadda baabi'isay ilaahay ka reebi doona insha allah garoonkana noo balana dadka shahaadiinta jinniga iyo saxarada waxaan leenahay ummadda baabi'isay maadaama reer muqdisho in badan ay ku taamayeen inuu yimid cabdixaq ama la lahaa cabdixaq baa yimid lacaga looga aruursanayay waxaan leeyahay cabdixaq waa kan uuna u yimid dadkiisa inuu maarata ku caawiyo qur-aanka halkanna waa garoon loogu talagalay inay dhalinyaradu maaragtay ku aalamiitayaan maamulkii shaleemada waxaanu ka codsannay inta aan joogno inay meesha nagu wareejiyaan wayna naga aqbaleen marka waxaan leenahay shahaadiinta jinniga ah iyo suxarada iyo dadka sida xun wax u raadiya waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka baqeen dadka muslimiintana ha nabadgeliyeen garoonkan in badan baa lagu dheelay oo lagu kala badiyey laakiin aniga shahaadiinta halkan aan ku wada ciyaari doonaa waxaan ugu sheegay inaan uga badin doono كنا إبر كن ولي عياران نعمة وقبضني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إلهي كبر يا إلهي صار يقدر مد بدن وعدبن بإذن الله وسوق جاري ويستمر كان فكري أنا قاضي ضدك إن أنا سوق جاري كان ملها إن جوجو سيد بوصاصو أم هرجيسو وكله وحنا عن صدي إن أنا عاويو أنا وصفر روح إن مارت عمردا دوني إن أنا سوق بعد السوق مدن إلهي وصبريو إن هلك وحكون أولاد ده تضبع الرون ده إيه دقن مقالدن ما شاء الله سيجينا تعالى يقارتو إن أنا إن شاء الله تعالى إن شاء الله إلهي مرض بالصبي يقديقو مركز صود وهذا وحنودت كعصنا هنا قفك هدو قفل قفك حنوسن شغالة الجوجل لجو ورجينيو شغالها سنة إن شاء الله تعالى إن بدك لو وريق دونا هديتك صوّد قالان استحمد بين نقولي ساعة صح هدين نقطة سيد ماله بدنا كشغين جرنا كذا عضي وضدك استجيرانا شغاده وانو جوجين دونا مش شغين دونو هدي النظام ليدين كوايو محايا لقفك بوكان كهدو فرصة هلي وايو شغل مجلسه مركا هنقو كلفين وصبابها نقول قف أودي واي dadku $200 bay diyaarad ku soo raaceen $180 hotel bay degaan taxi baa ka baxa dad qofka ugu yar markuu soo safro $2,000 ayaa uu ku soo talagalaa maanta laakiin insha Allah ta'ala halkaas aanu nimi inaanu ku caawino marka sabab ha u noqon inay shaqadii joogsato oo dadku loo shaqeyn waayo adiga sabab ha u noqon haddii saxmad noqoto oo dadku nidaamkii shuruucda dejinay ku dhaqmi waayaan shaqadu way joogsanaysaa adigaana lagu weydiinayaa waxaan ugu talagalay ugu badnaan 10 cisho inaan dadka siiyo haddii horey lagu oran jiray waxaan ahay Cabdilxaq waxaa soo diray Cabdilxaq waxaan keenina Cabdilxaq way dhamaatay hadda runtii tahay I'm Cabdilxaq Cabdilxaq aniga Cabdilxaq ma sha Allah mana ihi nin dadka ka qaata $200 wax la mid ah marka waxaan leeyahay nimanka waxa sameynay ilaahay isugu noqda dib quraanku waa quraan ninka quraanka akhrinaya quraanku uu yaqaana dad badan buu ilaahay sabab uga dhigi kara laakiin ma aha inaad shakhsi daciif oo kula mid ah aad magaciisa ku qaraabato nusqaan bay kugu tahay nina waxba ku dhaamin oo ragnimo ku dhaamin oo diin ku dhaamin inaad magaciisa dadka ku baarato waa foolxumo waana ceeb bay kugu tahay hadda ninka kaamarada gacanta ku haya waa dadkii lacagta laga aruursado ka mid ahaa hadda ninka fiidiyoga duubaya marka waxaan leeyahay shaqadu way soconaysaa ummadana waan u shaqaynaynaa ilaahayna waxaan ku baryaynaa inuu maaragtay jalla jalaaluhu ilaahay maaragtay sabab nooga dhigo insha allah marka khayr badan allah siiya dhalinyarada ninka dhalinyarada waa ragga maaragtay beejkay ku taxan buu ka mid yahay waa ninka cameramanka ahaa dadkii lacagaha laga qaaday buu ka mid ahaa haddana dib loo ilaahay uga soo celiyey marka sheekh adiga dadnimadaada dadka wax ugu qabo dadkaa ku mashquulin magacyada ummadana ha xagan insha allah
بارك الله جزاك الله خيرا ها شغلنا ويسعوني سادتك الساعة الله شيء ماشتني هو مقدشو قارهان حافظ حمر ججب إن شلام أفريقيا ويان هل كاسانو أنا جاي عدو ومد هيستا إن كودا عيار دونا إن شاء الله يا ساحرين تي شادين تي جنّي مركا سودا وادا ولا لا سودا وادا عيارتو بري كرون كاسي كدا عيسى وحنا اللي قدام يا الحق يا بادلك وانا كقول سنة شادين إن شاء الله مركا حال ساعة قرانكم بالله إن شاء الله تعالى إن إلهي سبحانه وتعالى ومدة بدنها نقول شافيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته